markii ciyaaryahanka kubadda cagta ee Turkiga Hakan Şükür uu ka dhaliyay goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda koobka adduunka koonfurta Kooriya 2002 waxa uu xisbiga cadaaladda iyo horumarinta AK Party ee dhawaantan la yagleelay u diyaar garoobayo inuu hoggaanka dalka la wareego. Hakan waxa uu gool ka dhaliyay ilbiriqsigii 11aad ee bilaabashada ciyaarta waxaad ku tilmaami kartaa awoodda dabacsan oo hore dawladdu ay maamulayaasheedu saldhig ugu yeelan doonaan siyaasadooda dabacsan. 2020 lagdamaagii reer Turki Qura Deniz waxa uu ku guuleysanayay koobka horyaalada Yurub ee lagdanka xorta ah. Isla waqtigaasi awoodda adag ee Turkigu waxa ay garaacaysaa aagga dhow iyo midba fogba. waxay xarumo military ka samaysanaysay khaliijka Carabta iyo qaaradda Afrika. waxay Yurub iyo Mareykanka kula cartamaysay soo gadashada nidaamka difaaca S-400 ee Ruushka. Droniska Turkigu waxa ay duqeynaysay cidda ama qolada ay Ankara u taqaano cadowga amniga qaranka ee ku sugan Suuriya, Liibiya iyo Ciraaq. waxayna u diyaar garoobaysay inay Azerbaijan kala qayb gasho dagaalka ay kula jirto Armenia. xisbigu waa isla xisbigii, hogaamiyuhu waa isla asagii, dawladdu waa isla dawladdii, laakiin qalabka ayaa isbedelay. 2002 halku dhagu waxa uu ahaa dhibaato eber. 2020 xaalku waxa uu ahaa gelitaanka dhibaatooyinka. 2021 Turkigu waxa uu ballan qaaday wax cusub. loolanka awoodda iyo aqoonsiga ee qarka basafoorka. heerarka uu soo maray Turkiga ee ku go'olitaanka wadada isku xirta Yurub iyo Aasiya waa warbixinta aanu dib u bilaabay doono oo dhowr qaybood ka kooban doonta waana turjumidii barnaamij ay diyaarisay Al Jazeera qaybta meydaan. qofna kama dhalan jiilka hadda jooga ee Turkiga markii ay Turkidu ku guuleysteen dagaalkii xorriyadda iyaga oo jabiyay heshiiskii isdhiibista ee Sefres ay la galeen dawladihii ku guuleystay dagaalkii koobaad ee adduunka. waxa uu saxiixay Mustafa Kemal Atatürk heshiiska Lozan ee samaysmay qaaradda Turkiga ee maanta kana hortagay in dalka lagu ururiyo meel yar oo Anatol ka mid ah. hadafkii Mustafa Kemal Atatürk waa uu caddaa soo celinta bariga ee Turkiga iyo in dhidibada loo aaso xuduudda Turkiga ee kama dambaysta ah ayadoo aqoonsi rasmi ah ama kama dambaysta laga helayo dawladihii dagaalka ku guuleystay. xaqiiqadii aabbaha Turkigu waxa uu asaasay jamhuuriyadda Turkiga ee cilmaaniyadda taasoo iyadu isku mashquushay kana xuubsiibatay ilbaxnimadii dhaqankii iyo diinteedii. xarfaha carabiga waxaa lagu bedelay xarfaha laatiinka. adinkii carabiga ahaa waxaa lagu bedelay adin Turki ah. kalandarka hijrigana waxaa lagu bedelay kalandarka Yurubiyaanka. waxaa la meel mariyay markii uu Atatürk ku dhintay qaanuunka loo yaqaan xasilooni kaasoo lagu ciqaabayo qof walba oo dalbada in diinta loogu noqdo. taasi waxay hordhac u ahayd marxaladii taabacsanaanta reer galbeedka dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo militariba. waxa uu ku oranayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Turkiga Ahmedou Oglu buugiista istiraatiijiyadda Turkigu wuxuu ogolaaday inuu ahaado xubin aan firfircoonayn muddadii lagu jiray dagaalkii qabooba. waxa ay dareentay inay u baahan tahay ilaalada amni ee reer galbeedka. oraahdani wax badan ayay soo koobaysaa. Turkigu waxa uu ku biiray isbahaysiga NATO 1952 waxaana noqotay xarun military oo Mareykanka kaga hortago fiditaanka shuuciyadii maalmihii dagaalkii qabooba. xaaladda waqtigaas waxaa lagu soo koobi karaa 2 weerood. dawlad shacabku soo doorto hase yeeshee aan gacanta ku hayn ciidanka iyo ciidan isku aqoonsan inuu mas'uul ka yahay cilmaaniyadda dawladda una diyaarsan inuu afgambi ku sameeyo dawlad walba oo rayid ah sida afgambigii uu ku sameeyay ra'iisul wasaarihii hore Adnan Menderes 1960 kadibna dil lagu xukumay. arrimaha dibadda dawladdu waxay ku soo koobtay halku dhaga nabadda waddanka iyo nabadda adduunka iyadoo oo waxyaabo laga soo reebayo sida ka qaybgalkii dagaalkii Kuuriya ee 1952. awoodda culus ee ciidanka waqtigaasi waxay ku jihaysnayd inta badan gudaha marmarna dibadda dagaalada reer galbeedka uun kaliya. balse kacdoonkii hubaysnaa ee ugu horreeya waxa uu dhici rabaa Turkigu waxa uu Mareykanka ku khilaafay dhibaatooyinka gantaalada Kuuba 1962
xiriirkuna waxa uu sii xumaaday 64 markii mowqifyo kala duwan laga qaatay xaaladda Qubrus. hawshu ma sii dheeraan ilaa la gaaray markii ugu horeysay Turkigu adeegsado awood ciidamadeeda siyaasadeeda arrimaha dibadda 1974 Najmuddin Arbakan oo loo yaqaano aabbaha islaamka siyaasadeed ee Turkiga oo xilligaasi madaxweyne ku xigeen u ahaa Bolan Ajawaad hogaamiyihii xisbiga jamhuuriga ee cilmaaniga ah oo waqtigaasi dalka ka maqnaa waxaa kadis ku noqday go'aankii Arbakan ee ahaa in awood military lagu gado Qubrus si looga ilaaliyo Turkiga Qubrus afgambigii Griiga. go'aan ka soo baxay nin lagu tiriyo dhanka islaamka muxaafidka waxaa la cartan ku ahaa reer galbeedka iyo rabitaankooda. arrinta Qubrusna waxa ay ku jirtay gacanta reer galbeedka. Turkigu waxa uu ka faa'iideystay duruuftii dagaalkii qaboobaa. Mareykanka iyo Yurub midna ma rabin inay dagaal la galaan Ankara, waayo waa unug muhiim u ah ka hortagidda Shuuciyada. Washington waxa ay ku gaabsatay inay xanibaad saarto xagga hubka Ankara intii u dhaxaysay 75 ilaa 1978. waa arrin u eg barnaamijka nukleerka ee Pakistan, kaasoo uu Mareykanku indhaha ka laabtay isagoo ka baqaya inuu ku waayo xulafaysiga Pakistan intii lagu jiray duulaankii Sofiyeetka ee Afghanistan. waxa uu ogolaaday Turkigu 3 arrimood: tayada ciidamadiisa ee dhaqaaqa uu kaligii sameeyo, muhiimadda dhanka juqraafiga siyaasadeed geopoliticska, laba huraannimada inay bilowdo samaysashada hubkeeda si madax bannaan. waqti walba waxaa dhici karta inaysan danteedu waafaqin danta xulafadeeda reer galbeedka. Turkigu weligiis waa uu ogaa muhiimadda barta uu dhici ee juqraafi ahaan isku xirta Aasiya, Afrika iyo Yurub, kaasoo kulaala biyaha diiran iyo biyo xireennada isaga soo gala, balse ma lahan wax aragti siyaasadeed oo uga faa'iideysto meesha uu yaallo ee muhiimka ah. sidaas ayuu ku fasiray Axmed Daawud Ogleh xaaladda waqtigaasi. Turkigu waxa uu ahaa 1991 xarunta ay ka kacaan diyaaradaha Mareykanka iyo isbahaysigiisa adduunka si ay u garaacaan Ciraaq markii Saddam Hussein ku soo duulay Kuwait wax yar kadib. dagaalkii qaboobaa waa uu dhammaaday iyadoo uusan Turkigu gudan wax kaalin goboleed iyo mid dawladeedba. muhiimadiisii ahayd inuu gaashaan u yahay reer galbeedka Shuuciyadu way dhammaatay. yoolkii juqraafi siyaasadeedka geopoliticsku wali waa ay jirtaa, balse waxaa aragti dhammaystiran oo aan ku garan karno kaalintiisi ma jirto. dhanka gudaha loolankii 10 sano ayaa sii socday. cilmaaniyadda adag ee ciidanka oo dhinaca iyo shacabka muslimka ee mar walba soo dooranaya haldoor islaami ah oo dhinac kale ah. bartamihii 9aadkii Rajab Tayyip Erdogan waxa uu ku guuleystay duqa magaalada weyn ee Istanbul. dhammaadkii 9aadkii waxaa afgambi aan dhiig ku daadan ciidanku ku rideen Najmuddin Arbakan. 1997 waa la xidhay Erdogan kadib markii uu tiriyey gabay ka turjumaya islaamnimada Turkiga. Turkigu waa uu isbedeli doonaa. Erdogan xabsiga ayuu ka soo baxayaa. waxa uu hogaaminayaa xisbi cusub oo magaciisa la dhaho cadaaladda iyo horumarinta, kaas oo ku guulaysan doona doorashooyinkii 2002 dalkana hogaamin doona. Turkiga iyo awoodda dabacsan 2002 ilaa 2016 markii uu soo baxay xisbiga cadaaladda iyo horumarinta waxaa la helay aragtidii la tabayay ee ahayd aragti istiraatijiyadeed. dawladdu waxa ay qaadatay siyaasadda dibadeed oo cad qoranna wixii tagay burin mayno balse waan dadaalaynaa. Yurub inaan ku biirno waa arrin muhiim ah, balse waxay ku dhisan tahay siyaasad dibadeed oo madax bannaan. waxaan u jihaysanaynaa bartamaha Aasiya, Qowqaas, bariga dhexe ilaa iyo Afrika. dhibaatooyinka eber dariska ah mudnaanta waxaa iskala dhaqaalaha. awoodda la adeegsanayaa waa midda dabacsan. sanooyin kooban gudahood waxaa hirgashay kacdoon dhaqaale. Turkigu waxa uu ka mid noqday 20 dawladood ee ugu dhaqaalaha badan ee adduunka G20 kadib markii uu ahaa dawlad deymo badan la daaladhacaysa. kaabayaal dhaqaale oo awood badan, kacdoon warshadeed, beero iyo mid military ayaa israacay. waxay mowqif cusub ka qaadatay arrinta Kurdida, waxayna siisay xuquuq aqooneed dhaqaystiran oo dhaqan, iyada oo ku dheggan mowqifkeedii adkaa ee ka dhanka dhaqaaqa goonisutaaga. waxqabadyo ayay siisay taageero shacab oo aad u ballaaran
iyo culays shacab oo ka caawin kara iska horimaad oo suurtagal ah xagga ciidanka. arrimaha dibadda waxa uu Turkigu 2005 wadahadal la furay midowga Yurub si uu u helo xubinnimo buuxda. waxa uu hal abuuray waddo u gaar ah dhanka awoodda dabacsan. waxa horumartay daraamada ama riwaayadda Turkiga. waxa uu gargaar u fidiyay dowladaha Afrika iyo Aasiya. waxa ay bilaabeen jaamacadaha maxalliga ah inay waxbarasho bilaash siiyaan ardayda Carabta, Afrika iyo Aasiya. waxa ballaartay kaalintii hay'adaha dawladda ee arrimaha diinta, dacwada iyo gargaarka. dhanka diblomaasiyadda waddanku waxa uu bilaabay socdaal diblomaasiyadeed iyo inuu xiriir saaxiibtinimo la sameeyo dalalka dhow ka fog bari iyo galbeedba. waxa uu isku aqoonsaday inuu tusaale naajixa u yahay siyaasadda, dhaqaalaha, wadahadallada iyo dhibaatooyinka ka marnaanta ah. waxa ay dawladdu mowqif taageero ah ka qaadatay arrimaha Carabta iyo Islaamka oo ay ugu horreyso qadiyadda Falastiin. saamaynta awoodda dabacsan ee Turkigu waxaa ka mid ahaa mid aan indhaha laga qarsan karin oo ah ra'yi ururin laga sameeyay qayb ka mid ah dawladaha Carabta 2002. Turkigu waxa uu soo baxay dawladda ugu xun kadib Mareykanka iyo Israa'iil. ra'yi ururin kale oo 2011 la sameeyay, Turkigu waxa uu ku soo baxay kaalinta koobaad isaga oo noqday dawladda heshay codadka ugu badan ee wanaagsan positive tiro gaaraysa 70%, qayb ka mid ah dawladaha Carabta iyo Iiraan. waxaana loo arkay dawlad iyadu maanta hogaaminaysa dawladaha Islaamka ee dunida.